السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنالك مركز سود واضح أدي هذا ومهسنتين ما أنت وأنا ندي كل وذاقه مدحوين دونالد ترامب أو عاو كونغرس كأم مديسن خطبة شعب كأمريكان كأوجدين دونا State of the Union أي اللي يرادا مدحوينه السنة كستا أيو شعب كأمريكان كأوجديا وحنا وكور هلا كونغرس كأم مديسن سيدا عاديا ترامب أجدياشي سأيو كفان دونا وحنا نسميين أنت سوقف أيان ترحيلنا intaasi ayaa iskood isku masaafurisay wadanka dhaqaalihiisu waa sida laakiin dimuqraadiyiinta intooda badan ma qorsheynayaan in ay khudbadiisa dhageystaan qaarkoodna waxa la filayaaba marka ay tagaan kadib in khudbada oo socota ay isaga soo baxaan kuwa kalena barnaamijyo kale oo khudbado kale oo Trump tiis ay uga soo horjeedaan ay meelo kala duwan ay ka jeedin doonaan haddaba taageerada uu shacabka Mareykanka ka haysto madaxweyne Trump maadaama hadda sanad uu xilka hayay ilaa iyo intee ay la egtahayna sidoo kale waan idinla wadaagaya maanta warbaahinada Mareykanku waxay si aad uga hadlayaan in Epstein files kii la soo bandhigay ay FBI-da iyo sidoo kale wasaaradda cadaaladdu ay ka reebeen dokumentiyo fara badan oo Trump la xiriirinayay Epstein arintaasi dimuqraadiyiinta waxay sheegeen in ay hadda baaritaan ay ku bilaabayaan waxaana la leeyahayba 2 ama 1% ayaa la soo bandhigay Epstein files oo intooda badanba waa la qariyay sidoo kale Ilhaan Cumar oo ka hadlaysa khudbada Trump uu u jeedinayo shacabka Mareykanka caawa maxay ku tilmaantay khudbadaasi waan idinla wadaagayaa iyo sidoo kalena xildhibaan ka tirsan xisbiga Republicaanka oo maanta aqalka wakiilada ka hor hadlayay oo arinta Epstein darteed Mike u qaatay wasaaradda cadaaladda muxuu ku eedeynaya ilaa iyo haddana ayaa Congress oo midaysan oo ka hor hadlaa isla markaana shacabka Mareykanka uga hadlaa wax qabadkiisi hadda sanad ayuu xilka hayay Trump sidaan ognahay khudbadiisa fan fara badan ayaa ku jiri doona intaasoo qof oo dambiilayaal ayaan masaafurinay intaasoo qof oo sharci darro ayaan masaafurinay intaasi ayaa wadanka iskood isaga masaafurisay intaasoo dagaal oo kala duwan ayaan joojiyay canshuurihii aan ku soo rogay wadamada caalamka oo hadda jimcihii ay maxkamadda sare ay waxba kama jiraan ku tilmaantay oo ay ku sheegtay in awoodiisa uu ka talaabsado Congress-ka ay awoodaasi lahaayeen inuu ku faano walow hadda 15% canshuuraha wadamada caalamka uu ku soo rogay laakiin waa ku meel gaar 150 maalmood ayay socon doonaan kadibna Congress-ka ayuu ogolaasho uga baahnoon doonaa muxuu sameyn doonaa markaas kadib waan ogaan doonaa marka Trump kulli waxa la filayaa in khudbadiisu xitaa uu ku faano Jeffrey Epstein file oo intaas la hayaan la soo bandhigo waan soo bandhignay inuu xitaa ku faano marka waxa la filayaa sidoo kale khudbadiisu in arrimahaasi ay qusayso laakiin dimuqraadiyiintu maxay qorsheynayaan intooda badan horta waxa la filayaa in aysan ka qayb galin khudbada madaxweynaha oo xisbiga dimuqraadiga qaybtii ay fariisan lahaayeen ay banaanaato inta ka qayb gashana waxa la filayaa in khudbada oo socota ay isaga soo bixi doonaan laakiin waxa jira barnaamijyo kale oo ka hor ay qaban doonaan khudbada Trump waxa jirta mid dibanayaashii Epstein files oo xubno ka tirsan dimuqraadiyiinta ay ka qayb galayaan oo National Mall-ka lagu qaban doono halkaasina ay ka hadli doonaan dibanayaashii dadkii dhibaatada uu geystay gabdhihii dumarkii inta badan oo hadda dad waaweyn ah oo xilligii ay da'da yaraayeen oo xildhibaano oo Adam Schiff uu kamid yahay ay ka qayb gali doonaan sidoo kale waxa jirta iyaduna mid kale oo labada maayar ee Chicago Brandon Johnson iyo Minneapolis Jacob Frey ay ka qayb gali doonaan maadaama magaalooyinkooda howlgalada ICE ay si aad ah ay u saameeyeen oo iyaduna Washington ka dhici doonta National Press Club-ka ayay ka dhici doontaa marka waxa jirta marka dhacdooyinkaasi kala duwan oo dimuqraadiyiinta ay doonayaan in xilliga Trump ka hor khudbadiisa ay shacabka Mareykanka tusaan Trump iyo waxyaabaha uu qarinayo iyo dhibaatooyinka uu shacabka Mareykanka u geystay sidoo kale waxa jirta madaxweynuhu markuu khudbad jeediyo maadaama xisbiga Republicaanka uu ka tirsan yahay dimuqraadiyiintana qof ka tirsan ayaa khudbad jawaab celina marka uu dhameeyo kadib jeediyay dimuqraadiyiinta waxa ay u xusheen caawa in gudoomiyaha cusub ee gobolka Virginia oo noqotay haweeneydii ugu horeysay ee gobolkaasi gudoomiye ka noqota oo la yiraahdo Abigail Spanberger in ay khudbadaasi dhinaca dimuqraadiyiinta oo ay kaga jawaabayso midda Trump ay u jeediso marka Trump khudbadiisa waxa la filayaa inay dheeraan doonto 1 saac ay ka badan doonto sida la saadaalinayo marka waan idin soo gudbin doonaa berri waxyaabaha uu ka hadlo Trump hadii alla idmo muuqaalkeena berri laakiin Trump taageerada dhanka shacabka Mareykanka uu ka haysto hoos ayay u sii dhacaysaa waxa la leeyahay hadda 39% ayuu haystaa taageero shacabka Mareykanka 60%na ma taageersana qaabka uu wadanka uu ku hogaaminayo sidoo kale waxa jirta
arrimaha sicir bararka 60% shacabka Mareykanku waxay leeyihiin wadanka sicir barar fara badan ayaa ka jira dhinaca canshuuraha waxa ka soo horjeedo 64% xiriirka wadamada caalamka uu la leeyahay 62% ay shacabka Mareykanku ay ka soo horjeedaan waxa la leeyahay madaxweynaha sidoo kale maskax ahaan iyo caafimaad ahaan waliba jir ahaanba wadanka ma hogaamin karo waxay leeyihiin maskax ahaan madaxweynuhu 56% ma wanaagsan ay shacabka Mareykanka aftidooda muujinaysa halka caafimaadkiisa jir ahaaneed ay 51% ay leeyihiin ma wanaagsan madaxweynaha gacmihiisa waxaan aragnaa in madow fara badan uu ka muuqdo lugihiisa ay bararsan yihiin marka caafimaadkiisa waxyaabo fara badan miyaa la qarinaya marka khudbadda madaxweynaha waa la sugi doonaa caawa uu jeediyo waxyaabaha ka soo baxana muuqaalada berri ay uga hadlo ayaan idin soo gudbin doona waxa jirta sidoo kale xildhibaan Ilhaan Cumar iyo xildhibaano kale oo gobolkeeda Minnesota laga soo doortay in maanta shir jaraa'id ay qabteen xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa waxa ay sheegtay in khudbadda madaxweynaha caawa State of the Union-ka uu jeedinayo ay beeni ka buuxi doonto waxaana ay sheegtay in uu ka hadli doono sida wadankeena uu u bulaalayo inta uu wadanka xil ka hayay laakiin waxay ku tilmaantay arintaasi BS inay tahay BS waxa laga soo gaabiyay waa garanaysan waa bullshit inay tahay marka sidaas darteed waxa ay tiri wadankeena waxa uu wajahayaa gaar ahaan deegaanada annagana la soo doorto Minnesota ay ka wada xaalad dhaqaale oo aad u xun waxaana sidoo kale arintaasi ay ka dhalatay siyaasadaha madaxweynaha waxay sheegtay qoysaska Mareykanku in ay dhibaatooyin ay hadda dhuumanayaan sababa la xiriira ciidamada faraha badan oo magaalooyinka Mareykanku uu ku daadiyay gaar ahaan Minnesota kuwaasi oo raadinayo dadka aan cadaanka ahayn sidoo kale ganacsiyada Mareykanka in dhibaatooyin fara badan ay la soo gudboonaatay sababa la xiriira canshuuraha uu ku soo ragay Trump oo aan sharciga ahayn waxayna sheegtay sicirka waxyaabo kasto in cirkaasi uu ku jiro Trumpna sidoo kale qoyskiisa uu uga faa'iideynayo madaxtinimadiisa isla markaana dawladda isagu uu hogaamiyo uu doonayo 10 bilyan oo lacag inay siiso waa IRS-ta uu dacweeyay uu yiri xilligii in dokumentiyadeeda ay soo bandhigeen oo sir ah marka waxay sidoo kale xaqiijisay in Ilhaan Cumar iyadoo shirkeeda jaraa'id qabanaysay in hadda waxay tiri wadanka Mareykanku life support ayuu ku jiraa life support waxa la yiraahdaa qofka marka xaaladiisa ay xun tahay qalabka lagu xiro oo inta nafta ay ku sii jirto marka waxay tiri shacabka Mareykanka ayaana price-kaasi bixinaya qiimahaasi bixinaya waxay sidoo kale xaqiijisay in wadanka Mareykanka in xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Trump oo ku tilmaantay xisbiga ilaaliya dadka haweenka jirkooda ka ganacsada waxa ay tiri waxa ay doonayaan in wadanka ay burburiyaan maxaa yeelay waxa ay tiri wadanka in hadda Epstein Files kala bar intooda badan ba lama soo bandhigin waxyaabihii Epstein Files waxay sidoo kale xaqiijisay shacabka Mareykanku caafimaad ma haystaan credit iskama bixin karaan sidoo kalena deynta ardada lagu leeyahay waa ay sii kordhaysaa marka waxay xaqiijisay in arrimahaasi oo idin madaxweynuhu caawa fan ku sheegan doono waxa shalay maanta aad loo wareejinaya taliyaha FBI-da Kash Patel oo markii teamka Mareykanka ee ragga ay ciyaar hockeyga ee Olombikada ay kaga guuleysteen Canada in uu qolka ugu tagay isla markaana isagoo qamri cabayo la dabaaldegay laakiin waxay tiri lacagtii canshuur bixiyaasha Mareykanka ayuuna ku dabaaldegaya ayay tiri taliyaha FBI-da marka Ilhaan Cumar oo shirkeeda jaraa'id arrimahaasi uga hadlaysay waxa ay tiri Tonight, Donald Trump will deliver the State of the Union. We know his speech will be full of lies about how our nation is thriving under his leadership. We know that it is BS. Our constituents are facing economic ruin because of his policies. American families are hiding because Trump's masked goons are roaming the streets looking for people of color. American businesses are suffering from unlawful tariffs and sky-high prices. Donald Trump funnels billions into his family's businesses and is shaking down his own government for $10 billion. Americans can't afford health care. They can't afford rent. They are weighted down by the mountains of student loan debt. The pedophile protection party-in-chief has instructed his Justice Department to cover up the Epstein file. So far, only half of the Epstein files have been released. No additional prosecutions have been announced, and our FBI director is partying it up in Italy on taxpayer dime. The truth about the State of the Union is this. Our country is on life support, and the American people are the ones paying the price. Minnesotans are here today to continue to shine a light on what is actually happening and continues to happen in our state. Over the past few months, our state has shown the country and the world what it truly means to be Minnesota strong.
Our communities have been under siege by a hostile, unhinged, and unaccountable federal government. laakiin arrintii Epstein Files ayaa haddana mar kale arrimo kale ay ka soo cusboonaanayaan. waxaa hadda la leeyahay wasaaradda cadaaladda 1% ama 2% ayay soo bandhigtayba Epstein Files oo 98 ama 99% waa la qariyay. hadda waxaa soo baxaysa maanta warbaahinada Mareykanka ay si aad uga hadlayaan in wasaaradda cadaaladdu ay qarisay amaba meesha ay ka saartay baabi'isayba faylal fara badan oo Trump la xiriirinaya Epstein. arrintaasi xisbiga dimuqraadigu hadda waxay leeyihiin baaritaan ayaan ku sameeynaa oo waa inaan baaritaan ku sameeynaa. We began with breaking news from MS Now this hour about Trump-related files missing from the DOJ's Epstein Files release. dhinaca kale arrinta Epstein Files sidoo kale waxaa maanta Congress-ka hortiisa uga hadlay in xildhibaan Thomas Massie oo Kentucky laga soo doorto oo Republicana waxa uu ka mid yahay xildhibaanadii soo diyaariyay sharciga la yiraahdo Epstein Files Transparency Act oo sharciga lagu soo bandhigayba in Epstein Files la shaaciyo ka dambeeyay. marka waxa uu sheegay in wasaaradda cadaaladda uu sameeyay Congress-ka isla markaana Congress-ku uu maalgeliyo Congress-kana loo baahan yahay inuu la xisaabtamo. laakiin waxa uu yiri wax cadaalada ma aanan ka arkin wasaaradda cadaaladda. waxaan idin sheegayaa oo kaliya waxay tahay inaanan arkin ayuu yiri qof la soo xiray ama dacwado lagu soo oogay kadib markii la soo bandhigay faylalkii sirta ahaa Epstein Files. waxaana uu sheegay in ka badan 3 milyan oo fayl la soo bandhigay laakiin intooda badanna la qariyay. waxa uu sheegay dad madax kambaniyada ayaa iscasilay, madax kale oo caalamka oo dawladaha caalamka ayaa iscasilay ama dacwada lagu soo oogay oo soo qaatay. Prince Andrew uu ka mid yahay. sidoo kale waxaa ka mid ayuu yiri safiirkii hore Ingiriiska ee Mareykanka Peter Mandelson iyo sidoo kale wasaarihii hore ee dalka Norway. laakiin waxa uu yiri Mareykanka ma aragno qof dacwad lagu soo oogay ama baaritaan lagu wado amaba la xiray. waxaan arkaynaa yiri taliyaha FBI-da hadda idin sheegayay in wadanka Talyaaniga ciyaarihii Olombikada uu dabaaldegayay. waxana uu sheegay way wanaagsan tahay inaad wadankaada ku faanto laakiin waxa wanaagsan inaad ku faanto systemka cadaaladda oo aynu leenahay. waxaana xaqiijiyay in hadda sharciga Epstein Transparency Act oo Congress-ka ay meel mariyeen in loo baahan yahay wasaaradda cadaaladda inay shaaca ka qaado email-ladii iyo waraaqihii xilligii 2008 markii Epstein Files dacwadaha lagu soo oogay sababta dacwadiisa loo qafiifiyay taasi oo qasabtay markii la soo daayay kadib in isla dambiyadii mar kale uu dib u sameeyo dad kalena uu dhibanayaal ka dhigo. marka waxa uu yiri wasaaradda cadaaladda hadda ayaan ka doonaynaa in cadaalad ay sameyso xilligan la joogo. marka waa kan xildhibaan Thomas Massie oo waliba Trumpna uu ku kacsan yahay uu leeyahay ninkaasi waxa uu qabaa cudurka la yiraahdo Trump cudurka la yiraahdo. xitaa waxa uu sheegay xilliga doorashooyinka dhexe ee soo socda marka la gaaro in uu isagu dad kale oo xubnaha kale ee la tartamaya Trump waxa uu sheegay inuu xubnahaasi u online doono uusan ogolaanin inuu dib u soo laabto. haddaba waa kan marka Thomas Massie oo arrimahaasi Congress-ka hortiisa maanta uga hadlay. Congress created the Department of Justice. Congress funds the Department of Justice, and Congress is responsible for the oversight of the Department of Justice. When will we see justice? I'll tell you what I've not seen. I've not seen any arrests from the revelations in the Epstein files. Over 3 million documents describing horrible things, describing unspeakable things. So much of it redacted. Over 24 people have resigned, CEOs, members of government worldwide. But I haven't seen any arrests or investigations here in the United States from this Department of Justice. Prince Andrew, Duke of York, who has since been stripped of his royal titles due to his affiliation with Jeffrey Epstein, has been arrested. Peter Mandelson, who previously served as UK's ambassador to the United States, resigned in disgrace from United Kingdom's House of Lords and the Labour Party, and he's been arrested. Former Prime Minister of Norway, Torbjorn Jagland, has been charged. But we don't see any charges, arrests, or investigations in the United States. What do we see? We see our FBI director celebrating in the locker room at the Olympics overseas. It's fine to be proud of this country, but we should be proud of this country because we have a system of justice that works. And yet we do not. Well, the Epstein Files Transparency Act requires the DOJ and the FBI to disclose to us
Their internal memos and emails about how they made those decisions, whether to prosecute or not prosecute. Yet they have not delivered those memos. And we still don't have the memos and documents and emails from 2008 to explain why Jeffrey Epstein was given such a light sentence in what would have been an open and shut case of child sex trafficking, which allowed him to go back and recommit these terrible crimes, create hundreds of more victims, and ensnare so many other people in his conspiracy. Where are those documents that describe those decisions? We need justice. We want the Department of Justice to get to work, and that's what they need to do now. هذه يا دوما سنتين أصحابتي أنت المركلة كل مدون نبت قلي